Assalaamu calaykum. Ilhaan Cumar waa gabar Soomaali Amerikaan ah oo ka tirsan Golaha Koongareeska waddankaas, waana xubin ka mid ah Guddiga Arrimaha Dibadda ee waddankaas. Waxay dhaleecayn weyn kala kulmaysaa maalmahan dambe warbaahinta iyo madaxda waddanka, iyada oo lagu eedeynayo inay ku kacday hadalla loo turjumay inay yihiin yuhuud nacayb. Inkastoo ay garab ka helayso xisbiga ay ka tirsan tahay ee dimuqraadiga ah, haddana waxaa cadaadis weyn uga imaanaya xisbiga jamhuuriga iyo dhammaan saxaafadaha u ololeeya yuhuudda. Ugu dambeyntii waxay qaadatay inay raaligelin ka bixiso qoraalkii ay soo dhigtay tweet-ka, laakiin madaxweynaha dalka Mareykanka oo isagu dhinaciisa ka soo galay cambaaraynta iyo eedaba ku tilmaamay inay tahay istaad raacin raaligelinta ay bixisay. Saas darteed Ilhaan waa inay is-casishaa ama ay banaysaa ka mid ahaanshaha xubnaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Koongareeska. Mar kale Ilhaan iyadoo iska difaacaysa eedda madaxweyne Trump isagana u jawaabaysaba waxay ugu jawaabtay in haddiiba uu qof is-casilayo dad nacayb iyo ummad nacayb isku casilayo ay tahay inuu Trump is-casilaa, maadaamuu isagu yahay midka ku caanbaxay inuu cid gaara necbaado ama cunsurnimadu tahay ninka ay ka bilaabanto.